hay-adda shaqaalaha dawladda ee gobolka Tog ayaa maanta imtixaanka ka qaaday wajigii saddexaad ee shaqaalaha ku meel gaarka ee kala duwan ee ku qornaa wasaaradaha laamaha dawladda ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana imtixaankan hay-adda shaqaaluhu ku qaaday xarunta hay-adda shaqaalaha ee gobolka Togdheer isdiiwaa hay-adda shaqaalaha dawladda ee gobolka Togdheer Cabdi Fataax Siciid Jaamac ayaa ku dheeraaday isla markaana ka warbixiyay shaqaalahan ku meel gaarka ee ku qornaa wasaaradaha kala duwan ee gobolka Togdheer waxaana uu rajeeyay inay ku soo doonaan imtixaankan ay hay'adda shaqaalaha dawladdu ka qaadi doonto waxaan saaka halkan aan ku daafuraynaa oo imtixaankii u fadhiisanaya wajigii saddexaad ama dufcadii saddexaad ee shaqaalaha temporary-ga wasaaradaha saddex wasaaradood baa halkan fadhiya ama saddex hay'adood wasaaradda biyaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo komishanka la dagaalanka ama xakamaynta AIDS-ka halkan waxaa inoo fadhiya shaqaalihii temporary-ga ahaa ee muddada dheer volunteer-ka ugu shaqeynaya wasaaradahaas iyadoo laga duulayo go-aankii golaha wasiirada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ay ku soo saareen in dalka sanadkan 2021 wixii ka dambeeyay la roolo ama la joojiyo wixii la odhan jiray temporary-ga oo la dabar jaro wixii temporary ku joogay wasaaradahana imtixaan ay wada maraan oo hay'adda shaqaaluhu waday wajigiisa saddexaad baynu maanta soo gabagabeynaynaa saddexdan wasaaradood baa ugu dambeeya خير بدن بنو رجينا شغالها امتحان هو فرستين إن شاء الله تعالى وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليل براء رانتي في قرن كسوماليلاند مقالة برعو.